sida muuqataba gaadiidkani dagaal oo uu duubay mid ka mid ah dadkii adeegsanayay wadada ay hayeen ayaa waxa uu muujinayaa gawaadhida gaashaaman iyo weliba taangiyada kala duwan ee dalka Ruushka oo ku sii jeeda magaalada Sanjilan ee gobolka Nagorno-Karabakh halkaasi oo ay uga sii gudbayaan deegaamada kale ee gobolka Nagorno-Karabakh gaadiidkaasi tirada badan ee isugu jira gaadiidka gaashaaman taangiyada iyo weliba sanad military oo ka soo gudbaysa gudaha dalka Iran waxaana arrintaasi ay waji gabax iyo fadeexad ku noqotay dalka Iran oo iyagu dhawaan iska dhigay kuwa dhexdhexaad ah oo labada dhinac ee ku dagaalamaya gobolka Nagorno-Karabakh aan midna gacan siinaynin madaxweynaha jamhuuriyadda Azerbaijan Ilhan Aliyev oo isagu shaaciyay guusha ciidankiisu ay kula wareegeen magaaladaasi lagu magacaabo Zanjilan ayaa waxa uu yiri ciidamadannadu muddo 27 sano ah kadib waxa dib ay ula wareegeen magaalada Zanjilan oo ah magaalo istiraatiiji ah waxaana uu sheegay haatan in magaaladaasi ay tahay mid xora haddaba taliyihii hogaaminayay ciidankii gacanta ku dhigay magaalada Zanjilan ayaa isagu waxa uu la hadlay warbaahinta muuqaal kooban oo ay iska soo duubeen waxa uu ku xaqiijiyay gacan ku haynta magaalada Zanjilan oo iyadana uu sheegay inay tahay mid ka mid ah magaalooyinkii muhiimka ahaa ee ay agabka iyo weliba sanadda military u soo mari jireen ciidamada dalka Armenia. Muhterem Cenab Prezident, Cenab Ali Başkomandan, emrinize uygun olarak mevzu edirəm ki, Zanjilan şehri ve etraf arazileri işgaldan azad olunmuştur. Hal-hazırda Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, Qarabağ, Azerbaycan'dır. dhinaca kale ciidamada dalka Azerbaijan ayaa isla galinkii dambe ee maalinnimadii shalay ahayd waxa ay xoreeyeen amaba ay la wareegeen bridge-ka caanka ah ee lagu magacaabo Khudafarin Bridge oo isaguna ka mid ah halbowlayaashii ay sahayda iyo weliba hubku u soo mari jireen ciidamada maamulka Karabakh iyo kuwa dalkaasi Armenia bridge-kani lagu magacaabo Khudafarin oo ka mid ah buundooyinka ama bridge-yada istiraatiijiga ah ee sahayda iyo agabka military ay u soo mari jireen ciidamada dalka Armenia iyo weliba kooxda gooni u goosatada ah ee la magac baxday Artsakh ayaa waxa isagana xoreyntiisa ka hadlay taliyihii watay ciidankii gacanta ku dhigay bridge-kaasi weyn ee lagu magacaabo Khudafarin oo uu sheegay inuu yahay mid araxda ka jabinaya ciidamadii dalkaasi Armenia ee ku sugnaa aagaasi kuwaasi oo gabi ahaanba haatan iyagu cagaha wax ka dayay taliyaha watay ciidankii xoreeyay bridge-kaasi iyo guud ahaanba aagaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa muuqaalay iska soo duubeen waxa uu ku sheegay Muhterem Cenab Prezident, Cenab Ali Başkomandan, emrinize uygun olarak mevzu edirəm ki, Khudafarin Körpüsü ve arazisi işgaldan azad edilmiştir. Hal-hazırda Azerbaycan bayrağı burada dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, Qarabağ, Azerbaycan'dır. dhinaca kale wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Azerbaijan ayaa waxa ay taxday tuulooyin iyo weliba deegaamo kale oo ay 24 saac la soo dhaafay gacanta ku dhigeen ciidamada dalka Azerbaijan waxaana tuulooyinkaasi ay sheegeen in ay ka mid yihiin 6 tuulo oo ka tirsan gobolka Fazuli ee dhawaan ay la wareegeen ciidamada dalka Azerbaijan iyo sidoo kale 7 tuulo oo iyaguna ka mid ah gobolka Jibril 5 tuulo oo iyaguna ka mid ah gobolka lagu magacaabo Khojafan iyo sidoo kale 6 tuulo oo iyaguna hoos yimaada degmada Zanjilan dhammaantoodna ciidamada dalka Azerbaijan ayaa waxa gacanta ay ku dhigeen galinkii dambe ee maalinnimadii shalay kadib 27 sano oo ay gacanta ku hayeen ciidamada dalkaasi Armenia iyo weliba kooxaha gooni u goosatada ah wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Azerbaijan ayaa waxa ay sheegtay in dagaalkii lagu xoreynayay degmooyinkaasi iyo weliba tuulooyinkaasi kala duwan lagu dilay in ka badan 700 oo askari oo ka tirsan ciidamada dalka Armenia iyo maleeshiyaadka gooni u goosatada Artsakh sidoo kalena waxa ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi Azerbaijan
in ciidamadoodu halkaasi ay kula wareegeen agab military iyo weliba saanad ka mid ah kuwa culus ee ciidamada dalka Armenia sidoo kalena waxa ay sheegeen in dagaalkii lagu xoreynayay aagaasi ay ku qabteen maxaabiis ka tirsan ciidamada dalka Armenia iyo weliba ciidanka maamulka gooni u goosatada ah ee Artsakh wasaaradda gaashaandhigga ah ee dalka Azerbaijan ayaa waxa ay sheegtay in ciidamadoodu ay si laba jibaari doonaan hawlgallada iyo gulufka dagaal ee lagu xoreynayo magaalooyinka kala duwan ee weli ku jira gacanta ciidamada dalka Armenia waxaana wasaaradda gaashaandhigga ah ee dalka Azerbaijan ay eedeymo culus u jeedisay dawladda Faransiiska oo ay sheegtay inay gobolkaasi ku soo daabulayso ciidamo iyo weliba gaadiidka gaashaaman ee dalka Faransiisku uu leeyahay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Azerbaijan waxa ay xaqiijisay 9 duulimaad oo ay sameeyeen ciidamada cirka ee dalkaasi Faransiiska in lagu keenay magaalada Yerevan ee caasimadda dalka Armenia gaadiidka gaashaaman iyo weliba madaafiicda ridada dheer oo ay haatan ugu talagaleen ciidamada Faransiisku in ay kaga dagaalamaan gudaha gobolka Nagorno-Karabakh waxaana wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Azerbaijan ay sheegtay in ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee dalka Faransiisku uu ciidamadiisa ugu soo daabulayo gobolka Nagorno-Karabakh dawladaha Azerbaijan iyo Armenia ayaa mid waliba waxa mid kale ay ku eedeynaysaa inay gobolka Nagorno-Karabakh ku soo daabulayso ciidamo military ah oo xulafo la noqonaya ciidankeeda waxaase la xaqiijinayaa ciidamada ugu muhiimsan ee haatan sida shaac baxsan u jooga gobolka Nagorno-Karabakh in ay koow ka yihiin ciidamada dalka Faransiiska kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay dagaal khadhaadh oo ka dhacay gobolka Fazuli loogu dhigay 10 lama ilaawana isku soo wada duubay xaaladda guud ee gobolka Nagorno-Karabakh iyo dagaalada xawliga ku socda ayaa u muuqda kuwa iyagu marba marka ka dambaysa si xoogaysanaya waxaana haatan dhinaca diblomaasiyadda ku soo biiray dalka Mareykanka oo wasiirkeeda arrimaha dibadda uu martiqaad u sameeyay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Armenia iyo Azerbaijan kuwaasi oo lagu wado in uu kala hadlo sidii ay isula gaari lahaayeen xabad joojin bini'aadanimo iyo weliba wada hadallo rasmi ah oo lagaga go'aan gaarayo xaaladda qariban ee gobolka Nagorno-Karabakh kaasi oo haatan u muuqda inuu ka sii baxayo gacanta kooxda gooni u goosatada ah iyo weliba ciidamada Armenia